rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaannu nahay oy tolnimo meerta noo tahay ee aan weliba kaga miil caddahay miirsa diidanaya masallaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho muska inay afay galo arlada kama maciin moodo dhegaystayaal tan iyo waagii la abuuray goor iyo ayaanba aadanuhu wuxuu ku jiraa halgan uu tayada noloshiisa ku hagaajinayo qalab horle ayuu washaraa xag gaadiid iyo xag hoyba mar walba wuxuu maamiyaa taba cusub oo uu kaga saayid caleeyo dhibaha dabeecadda isla markaasna uu dheefteeda kaga faa'iidaysan karo wuxuu soo saaraa xilliyada kala duwan kolba huga ku habboon ee qabow iyo kulaylba uu kaga gaashaaman karo sidoo kale wuxuu aadanuhu wax ka beddelaa hannaanka fakarkiisa kolkii dabin la joogaba wuxuu soo rogaa habab kuwii hore ka duwan oo dareenkiisa hoose uu ku muujin karo waxaa isbeddela hababka wax loo qoro hababka loo maansoodo hababka loo cayaaro hababka loo heeso taasi markay dhacdana waxay saamaysaa qaar ka mid ah hiddihii la wada yiqiin markaasoo ay bulshadu laba u qaybsanto waayeel dhaqamadii uu arki jiray ku yooto ah oo waxyaabaha soo kordha ka hor yimaada iyo dhallinyaro waxaa soo dariyey inta u bogta dhab u hirgelisa kuna xaragood ah si kastaba ha ahaatee ugu dambaysta dhallinyarada ayay guushu raacdaa kolka bulshada dhexdeeda ay ku faafaan dhaqamadii dhowaan soo galka ahaa intii muddo ahna lagu muransanaa haddaba soomaalidu waxay ku jirtaa isbeddelka dhaqamadu ummadaha uu saameeyey welibana nolosheedii raacatanimo oo muddo gaaban si weyn wax uga dooriyey haddiiba meelaha uu isbeddelkaasu ka muuqdayna waxaa ka mid ah maansada oo qarniyo dhan ahayd goob ay soomaalidu ku badiso shisheeyihii ugu soo horreeyey ee hiddaheeda u kuurgalayna uu ku kuunyi jiray badanaana shayddaanka maansadu kolkuu ku soo dego maansayahanadii soomaalida ee raca hore waxay u bayri jireen 3 hab mid ahaan kuwaasoo kale ah gabayga geeraarka iyo jiiftada oo iyada masafana loo yaqaan marka aan raca hore leeyahay waxaan maanka ku hayaa hal abuuradii magaca dheer yeeshay ee qarnigii 19aad iyo kii 20aad hana qaaday sida raaga ugaas faarax afcad aadan gurey sayid maxamed qamaan bulxan faarax nuur cali dhuux caroole maxamed kali yowle ayax maxamed dhowre samatar baxnaan cabdigahayr cabdigalayax cali afyare aadan carab iyo tobanaankii kale ee ay xilli wada noolaayeen amaba ka dambeeyey si ay isku meeqaan dhowaayeen dhegaystayaal waxaa i danqaysa inaan idhaahdo maantadan la joogo soomaalida waxaa gabaabsi ku ah hal abuuro u maansooda raggaa aan magacyadooda soo xusay tabihii ay u maansoon jireen waxaa muuqata inta gabaygii laga wahsaday inta geeraarkii la cuslaystay inta masafadii la iska iloobay in saddexdiiba hees laga doortayoo iyada uun murtidii loola bayray nasiib darro waxayba hadda maraysaa in mugdi weyni uu soomaali door ah ka galo waxa uu gabaygu yahay isaga iyo geeraarku waxa ay ku kala gedisan yihiin labadooda waxa ay jiiftadu kaga duwan tahay saddexdoodu waxa ay heesta kaga duwan yihiin iyo afartooduba tilmaamaha ay wadaagaan taas ayaana malaha sabab u ah inaan marar badan la kulmo soomaali waayeel iyo dhallinyaraba leh oo guud ahaan suugaantooda iyo maansadooda aad u jecel ha yeeshee qaybaheeda iyo farsamo ahaan waxa ay kala tahay aan wax badani uga bilownayn kuwaasoo keliyana ma ahee waxaa jira rag iyo dumar maansada iyo hal abuurnimada caan ku ah oo waa la yaabe iyaga qudhooda ay arrimahaasi isaga qasan yihiin sidaa daraaddeed waxaa dhacda inaad maqasho iyaga oo gabay ku sheegaya tix oo idil iyo dhammaan wixii dhagahooda ku soo dhaca oo qaab maansa leh taasina siday ila tahay waa gaf weyn oo loo hurtili ay yahay inta goori goor tahay in dadka laga saxo anigoo haddaba gafkaas isaga ammaanka iyo maskaxda ku haya ayay ila habboonaatay si koobnaan badan inaan halkan ugu tusaaleeyo qaybihii maanso ee ay soomaalidu tiqiin iyo ulajeedooyinkii ay u badnayd inay qayb walba u adeegsato
haddaba gabayga intaan u hormariyo aan idhaahdo wax waliba haddii ay hormuud leeyihiin isaga ayaa maansida hormuud u ah. isaga oo qura ayaa lagu ogaan karaa inta ay gaarsiisan tahay awoodda hal abuurnimo ee hebel hebel ku duugan iyo kuwa la ayniga ah waxa uu dheeryahay. shakino kuma jiro inay taasi xiriir la leedahay farsamo ahaan dhismaha meeliska gabayga ah oo ka dheer meelisyada qaybaha kale ee maansada. sidoo kalena meeliska gabayga ah ee xagga qaafiyadda waa kaga duwan yahay qaybaha kale ee maansada. meelis walba waxaa qasab ah in laga dhex helo laba eray oo labaduba xaraf qura ka wada bilowda, halka maansada kale ay u badan tahay in laga rabo hal eray oo xaraf keliya ka bilowda. sidaa daraaddeed haddii hibada maansatirintu aanay hebel oo hal abuura si weyn ugu tallaalayn, haddii aanay laf iyo ludba ugu aroorsanayn, waxay u badan tahay inuu u bayro badda gabayga badaha ka jilicsan sida geeraarka iyo heesta. taariikhda maansada soomaalida sida laga dheehan karo, raggii hore markii ay maagaan inay arrimo waaweyn ka maansoodaan gabayga ayay adeegsan jireen. tuducyo halqabsi leh oo tixaha uu mariye ka mid ah ayay dadku jeclaysan jireen oo intay macaansadaan siday ugu celcelinayaan kor ka wada qaybi jireen. waayada dambena maalinta geedka shirka lagu arrinsanaayo, kob lagu garnaqsanaayo, garabta la isku hor fadhiyo, dharaarta madar lagu dhan yahay lagu xaajaysanayo ayay tuducyadaas ku mahmaahi jireen, kuwaasoo waayada dambe inta caan noqda hal abuurkii tiriyeyna soo caan bixin jiray. kolka anigoo dhallinyarada soomaalida u danaynaya, waayeelka qudhiisana waxay aqoon jireen xusuusinaya, maan tusaalayaal gaagaaban ka bixiya wixii uu gabaygu ahaa ee uu welina yahay. aan soo qaato gabyaagii caanka ahaa ee gabay uu tiriyey qayb ka mid ah, gabyaagii la ohan jiray salaan carabey, gabaygii gubaabada miiran ahaayee loo bixiyey ama la ohan jira mayn. tuducyadii ku jirayna waxaa ka mid ahaa: haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye, dhaqashiyo mar bay kaa yihiin dharagu xaaraane, dadigaansho waa ceeb inaad dhamagsataa meelee dhadhan ma laha aadmigu, wuxuu kugu dhaliilaaye nin dharbaaxa quuree dugsaday, dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa, xaajadaad dhowrataa abide. waa gabaya geeraar maaha, waa gabaya jiifta maaha, waa gabaye heesna maaha. meelisyada kale ee waxa gabaygu yahay aan ku tusaalaynayo aan ka soo dhambasho gabay uu tiriyey maansiyahankiisa ciideedka ahaa ee la ohan jiray saahid qamaan. wuxuu ula jeeday nin reerahooda ugaas u ahaa oo inta maamulkiisii la saluugay dadkii uu talinayay ay tala kaga dhammaatay inay maamuuska ka xayuubiyaan. saahid wuxuu ku jiray 7 nin oo wada maansiyahana oo midkood waliba goob ugaaskaasu fadhiyey oo fagaara ah uu ka tiriyey tix uu ku muujinayo sababaha aanu ugaasku u mudnayn in dhuubka boqortooyo uu dib dambe ugu xaragoodo. haddaba gabaygii uu saahid maalintaas mariyey aad ayuu ugu fiday soomaalida dhexdeeda. waa gabay inta si xad dhaafa caan u noqday, saahidna caan ka dhigay. wuxuu ku soo gabagabaynayaa tuducyo fikradaha sinaanta aad loogu xusuusto oo ay ka mid ahaayeen: rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi, mase inaanu nahay oo tolnimo meertan noo tahaye, oon weliba kaga miil caddahay miirsa diidaniye masallaha ninkaan ii dhigayn, midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara, uma muraadi yeesho muska inay afay galo arlada kama miciin moodo. kanina waa gabaya geeraar maaha, jiifto iyo heesna maaha. dhegaystayaal, waa inoo barnaamijka soo socda oo aan kaga hadli doono waxa uu geeraarku yahay.